السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن أصحابي مالكستو نغدا وريسان هبي وناكسن وهبي نمو 3-4 ay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 18 bisha Agosto sanadka 2026 wararkii soo kordhay intaynu kala maqnayn ayaynu caawa barnaamijka ku soo qaadanaynaa waana barnaamijkeennii saddexaad qodobada barnaamijkan idinku waayo waxaa ka mid ah dagaal laga baqayo inuu dhex maro Turkiga iyo Israa'iil kadib markii saakay aroortii Israa'iil ay duqeysay airport Suuriya ku yaala oo 70 kilomitir kaliya u jira xuduudda Turkiga. Erdogan waa la tijaabiyay muxuuse kaga jawaabi doonaa ayay leeyihiin warbaahinta caalamka. Haddaba wararkii ugu dambeeyay xiisadaas oo faahfaahsan waan idin hayaa. Imaaraadka oo weerarkii gantaalaha lagu soo qaaday war cusub ka soo saaray iyo cidda uu ku eedeeyay. Sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Iran Qalibaf ayaa berito u safraya Ciraaq safarkaasi ujeedadiisu maxay tahay iyana waan idin soo gudbin doonaa qodobadaas ayaynu barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa waa barnaamijkii habeenimo inta aan ku jirnana wixii soo kordha waan idin la socodsiin doonaa abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee adunkuna ma kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waana barnaamijkii saddexaad taariikhdu waa 18 bisha 8 2026 qodobo muhiim ah ayaa noo soo socda oo dhammaantood ah wararkii soo kordhay intaynu kala maqnayn ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijkankii ka horeeyay oo ahaa barnaamijkii labaad waxaynu ku soo qaadanay in weerar gantaalo ah uu ku soo wajahan yahay Imaaraadka oo Imaaraadka la kala cararayo balse aan la sheegin halka weerarkaasi uu ka imaanay hadda marka warkii Imaaraadku waray soo saareen oo ay kaga hadlayaan gantaalahaas halkay ku dambeeyeen meesha ku dhaceen iyo cidda soo riday haddaba telefishinka Al-Arabiya ayaa goordhow qoray wasaaradda gaashaandhigga Imaaraadku waxay sheegtay inay ka hortageen laba gantaal oo nooca plastiga ah oo ka yimid dhanka Iran kuwaasoo ku soo socday dawladda Imaaraadka haddaba warbixinta way sii socotay wasaaradda gaashaandhigga Imaaraadka waxay xaqiijisay laba gantaal oo nooca plastiga oo Iran ka yimid in lagu soo weeraray dawladda Imaaraadka waxaana la sheegay in gantaalka koowaad uu ku dhacay meel ka baxsan biyaha gobolka ee badda ayuu ku dhacay midka labaadna waxaa la sheegay biyaha gobolka ee gudaha Imaaraadka inuu ku dhacay sida la leeyahay haddaba wasaaraddu waxay sheegtay inay heegan buuxa gashay oo ay la tacaamulayso weerar kasta oo ku yimaada oo ay doonayaan inay iska difaacaan waxayna sheegeen inay arinkan aad uga xun yihiin weerarada ka imaanaya dhanka Iran oo markaa gantaaluhu ay sheegeen inay halka ka yimaadeen way Iran wax wara kama soo bixin ilaa caawa laakiin Imaaraadku waxay leeyihiin gantaalaha Iran inooga yimaadeen Iran xaggeeda ayay waxa nooga yimaadeen marka waa arki doonaa kullay Imaaraad iyo Iran ma kala dhabaanayaan maalmo hor markaba laga qabsaday maalmaha ka horeysay 3 markaba jugta laga galiyay Imaaraadku leeyahay Imaaraadka shaasha loo garaacaya marka hadda laakiin gantaalahan Iran wali kama hadlin oo warka ma soo saarin warka weyn marka caawa aad loo hadalhayo maxay saakay fajirkii ayaa waxaa la weeraray airport ku yaala Suuriya airportkaas marka wuxuu u dhow yahay xuduudka Turkiga 70 kilomitir wax ka yar u jira diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil dhowr jeer duqeey sababta marka loo duqeeyay airportkaas wuxuu ahaa xataa airport aan shaqeynaynin ahaa sababta loo guurmahay maalmo ka hor ayaa airportkaas waxa booqday oo tagay saraakiil Turki ah way soo indheeyeen in airportku shaqeeyo halkaas saldhig ka sameystaan ayagana waxaas ayaga mas'uuliyiin Suuriyan asla socod fariina loo diray marka Erdogan waxa la yiraahday meeshaas waxba kama sameey kartid waa imaanaynaa anytime maxaa qaadi kartaa Erdogan maxaa qaadi kartaa waa imaanaynaa عربتان أن جبتك قلنا إنه كلام صفقة سأكون قلنا لنا أردوغان ولا تجابيه أصيغ وطالع إليه وربايتي معوك وجواب الدورة أردوغان إنكستو تركيا أن للاينين ودن تركيا أن لصورين هدنا
wixii uu ku fakarayay ayaa waxaa la tusay haddaa inta imaatid waa ku garaacaliin sheekadu marka way dhanaan tahay turkigii halkaasaa go-anaa leeyahay cil ayuu markaa wuxuu sameeyo garan lahay maxaa la sameynaa marka waa arki doonaa warbixino faahfaahsan oo arrimaha laga qoray haddaba marka hore warbixintan aad waxaa uga hadlay wargeyska la yidhaahdo alqudus wuxuu leeyahay 8 weerar ayaa lagu qaaday eeraboor ku yaala meesha la yidhaahdo riif idlib ee suuriya ka tirsan waana risaala ama fariin israa'iil ay u dirtay turkiga ma ujeedaa fariin israa'iil ay u dirtay turkiga waa leeyahay ninkii Erdogan waa la haystaa haddaba wadanka Mareykanka waxaa ku sugan saxufiga ama wariyaha la yiraahdo Maxamed Cali Shuute oo soo akhriyay warbaahinta wararkii ugu dambeeyay gaar ahaan kuwa carabta waxa ay ka qoreen xiisadan cusub ee ilaa caawa taagan iyo jawaabta Turkiga muxuu sameyn doonaa Turkiga isagu haddaba marka waxaa noo soo koobaya Shuute haye Shuute noo soo koob mahadsanid ustaad cabdiqaadir nadaara israa'iil diyaaradaheeda ayaa saakay 8 weerar oo dhinaca hawada ah ku qaaday gidida diyaaradaha abu dhuhur ee militariga loo isticmaalo oo ku yaala miyiga magaalada idlib ee dhinaca bariga suuriya arintani waxay dhalisay dhibaatooyin dhinaca maadiga ah ayay garoonka u geysatay iyadoo wax dhaawacyo ah aysan dhalin ilaa iyo haatan wasaaradda arrimaha dibadda Suuriya ayaa cambaaraysay weerarkan waxay ku tilmaamtay inay tahay mid xadgudub ku ah qarannimada Suuriya isla markaana khatar ku ah amniga mandiqada bariga dhexe waxayna dusha ka saartay mas'uuliyadda weerarkan ay ku eedeysay Israa'iil waxay ka codsatay sidoo kale Suuriya golaha ammaanka iyo beesha caalamka inay si dhaqsile ay dhaqdhaqaaq u sameeyaan ee arintaasi ay ka jawaabaan dhinaca kale ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ee dalka Suuriya iyo Ciraaq oo lagu magacaabo Thomas Bragg ayaa isagana cambaareeyay weerarada Israa'iil ay ku qaaday gedida diyaaradaha ee dalkaasi Suuriya waxayna ku tilmaamtay amba ku tilmaamay ergeygaasi inay tahay weerar aan loo baahnayn oo daruuri ahayn waxa uu sheegay in xukuumadda ee Suuriya inaysan haatan wado xadgudub ah aysan ku taagnayn oo dhinaca Israa'iil isla markaana ay doonayso inay arinta ay xakamayso amba ay dejiso sidoo hadalku u dhigay ergeyga Mareykanka ee Suuriya iyo Ciraaq sidoo kale cabdiqaadir nadaaro Turkiga ayaa iyadana dhinaceeda waxay aad u cambaaraysay weerarada Israa'iil ay ku qaaday garoonkaasi militariga ee Suuriya waxa ayna ku baaqday in beesha caalamka ay mowqif adag ka qaataan waxa uu ku tilmaamay xadgudubka Israa'iil ee Suuriya lagu qaaday gididan diyaaradaha oo weerarka lagu qaaday ayaa 70 kiiloomitir dhinaca xuduudda Turkiga ee ka xigta waxa uu ahaa garoon aan shaqaynayn dhowr sano sidoo kale waxaa jira dhaqdhaqaaq ay sameynayso Turkiga si dib loogu bilaabo amba howlihiisa dib ugu bilaabo madaarkaas sida ay sheegeen ilwareedyo oo laga soo xigtay dhinaca warbaahinta weeraradan ayaa yimiday ka bacdi booqasho wafdi military ah oo Turkiga oo ku tagay madaarkaasi maalmihii aynu soo dhaafnay si markaasi madaarkaasi dib habeen loogu sameeyo oo dib loogu dhiso khabiir dhinaca amba khubarada militariga ayaa iyaga waxa ay aad iyo aad u sheegeen in beegsashadan ay tahay garoonka risaalo amba message siyaasadeed iyo mid military oo Turkiga loo dirayo kaliya ma ahan weerar military oo caadi ah ma ahan marka waxaa jira sidoo kale iskaashi military oo u dhaxeeya Ankara iyo Dimashq bimacnaa Turkiga iyo Suuriya ayaa maalmahan waxaa jiray iskaashi dhinaca militariga ah maxaa yeelay Turkiga waxay fiirsanaysaa mar walba amnigeeda
in ay xoojiso arrintaasna waxaa ka biyadiidsan amba weerarka keenay Israa'iil waa arrintaas marka khubarada waxay sheegeen Israa'iil inay aad iyo aad u walwalsan tahay in saldhigyo amba nidaamyo difaac oo dhinaca hawada oo Turkiga halkaasi laga hirgeliyo gaar ahaan Suuriya taasi waxa ay xadidaysaa amba ay hakinaysaa diyaaradaha Israa'iil inay ku heehaabaan hawada Suuriya marka arrintan waa arrin aad iyo aad Cabdiqaadir Nadaaro xasaasi u ah oo runtii indhaha caalamka soo jiidatay waayahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa saxufiga la yidhaahdo maxamed cali shuute oo telefoonka noogu soo koobayay wararkii ugu dambeeyey warbaahinta gaar ahaan kuwa carabtu ay ka qoreen weerarkii Israa'iil saaka ay ku qaaday Suuriya ilaa caawa halka ay xaaladdu marayso ayuu noo soo koobay waa maashantaa shuute inta ugu dambeysay barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan ninka la yidhaahdo Qaalibaaf ayaa bari aroortii wuxuu u safrayaa Ciraaq ujeedada marka safarka muxuu yahay dhowr arrimood uu daaran yahay marka oo muhiim ah Mareykanku waxay yiraahdeen 30 bisha September ayaanu ka baxaynaa Ciraaq Iiraan waxay u aragtaa ruwaayad inay tahay inuu ninka meesha ka baxayo inuu culays saaro rabaa September hadda bilaabanay hadda Agosto lagu jiraa September waa bisha 9aad 30keeda nimankan waa inay baxaan inuu dabada ka galo oo rabaa koowali midda labaad waxa isku dhagan xukuumadda iyo awlaadii Iiraan inuu xogaa kala dhex galo dawladda Ciraaq u yeertay waxay leedahay dawladda Ciraaq awlaadan hubkayna ka dhigaa rabaa Iiraan marka say u aqbalay awlaadada hubka ka dhigto taasna safarka ujeedadiisa labaad waay mid saddexaad oo warbaahinta caadi loo sheegayo xiriirka labada dal baarlamaanka kan waxaas waa iska caadi laakiin muhiimadu waa arrinkaas la leeyahay haddaba markaan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay al-Sharqul Awsat wargeyska la leeyahay caaw wuxuu qoray gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan wuxuu booqanayaa Ciraaq barito ayuu booqanayaa haddaba warka uu sii socday waxa leeyahay ninka la yiraahdo Maxamed Baaqir Qaalibaaf ayaa arbacada wuxuu tagi doonaa Ciraaq isagoo hogaamin doona wafdi baarlamaan oo heerkiisu sareeyo iyagoo wada hadallo la qaadan doona madaxda wadankaas oo ku saabsan arrinta gobolka wakaalada wararka Iiraan ee la yiraahdo IRNA ayaa sheegtay maanta Talaada Qaalibaaf subaxii inuu halka ku wajahan yahay dhowr arrimood oo muhiimana uu halka u tagi doono marka arrimahaas uu marka u socdaan leeyahay 30 September Mareykan waa baxa meeraha hore u sii tuuro hanaga idinka saara meesha ka bixi laakiin Iiraan wuxuu ogtay inuu sabaxay ninkan uu war leeyahay way ku sii direen marka ninkan inuu baxo iyo arrintan kale oo khilaafkan dhexdooda oo awlaadda iyo dawladda Ciraaq haysana xogaa inuu kala dhex galo arrimahaas u socdaa marka waa arki doonaa kulay wixii warar soo kordha wararkaas waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyay barnaamijkeena saddexaad waa naga inta dadka aan daawan barnaamijkeena labaad iyo kii koobaad maanta iyaguna warar aad u xiiso badan ayaa ku soo gudbinay si aad mar walba ula socoto mid yuusan ku dhaafin barnaamijyada si aad akhbaarta mar walba ula socotid mid hadduu ku dhaafo warar baa kaa tegay marka si aad xaaladda ula sii socotid marka waa inaad ku xirnaatid waa baasantiid sida aad mar walba barnaamijyadeeda ugu xirantihiin fakarkiina uga dhiibataan u laag garaysaan anna waan idin mahad celinaya meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo